astaamahan haddii aad ku aragto qofka aad wada socotaan waxaad ogaataa qofkaasi inuu ku jecel yahay adiguna aad tahay qof nasiib badan oo adduunyada korkeeda ku helay qof jecel. astaamahaasi haddaba waxaa ka mid ah qofka ku jecel waxaa lagu gartaa markasta kuuma waayo wax waqtiya si kasta oo mashquul yahay adiga waqti ayaa uu ku hela. qofka ku jecel waxaa lagu gartaa dhoolla cadayn, weji furnaan iyo farxad uu markasta kugu soo dhaweeyo kuguna qaabilo. qofka ku jecel waxaa lagu gartaa hambalyo iyo ammaan. marka aad guul gaadho ee aad noloshaada guul ka gaadho waa uu ku hambalyeeyaa, sidoo kale markasta waa uu ku ammaanaa oo waxa uu kaa sheegaa waxyaabo wanaagsan. waxaad ogaataa qofka ku nacabi inuuna ku ammaanaynin kuna hambalyeynaynin oo ay intaasiba ku adag tahay. qofka ku jecel markastoo aad isku dhacdaan waxa uu kuu sameeyaa cudurdaar, waxaanu raadiyaa jaanis uu kugula sii joogo. khalad kasta oo aad gashayna waa uu kaa cafiyaa. sidoo kale wax kasta oo dhexdiina ka dhacay isaga ayaa eedda qaata oo adigana waxa uu ku siiyaa raaligelin xataa haddii aad adigu khaldanay. qofka ku jeceli waa ka ku ixtiraama ee waxa aad adigu rabto kugu ixtiraama. haddii aad aragto qof aan ku ixtiraamaynin oo isagu danaha uu leeyahay una u cad yihiin oo dana gaara kaale, waxaad ogaataa qofkaas inuu ka jeclayn ee uu ujeedooyin kale kula socdo. qofka ku jeceli waa qof feejigan oo kuu soo jeeda oo marka aad la hadlayso aan moobilkiisa ku mashquulin amaba aan meelahaasi iska eegin ee waa qofka hadalkaaga dhageysta ee hadalkaaga si wanaagsan u dhuuxaa ee si wanaagsan kuu soo eega. laakiin haddii aad aragto qof aad u sheekaynayso oo kule haye sax waa sidaa oo aan kulaba socon laakiin isaga kaa jiibinaya, waxaad ogaataa qofkaasi wax qalbiya iyo wax niyada inaanu ku hayn. markaa qofkaasi waqti badan ha iskaga luminin. qofka ku jeceli waxa uu ku qanacsan yahay sida aad tahay, sida aad u eg tahay ayaa uu kugu jecel yahay, sida ilaahay kugu abuuray ayaa uu kugu rabaa, waana mid kugu qanacsan. sidoo kale markasta waxa uu kaa sheegaa ammaan, marka aad guul gaadhana wuu ku dhiirigeliyaa. haddaba astaamahani haddii aad ku aragto qofka aad wada socotaan waxaad ogaataa inaad tahay qof nasiib badan oo nasiibku uu ku beegay qof jecel. qofkaasina ilaali, qalbigiisana ka dhow dhaawaca iyo dhibaatada. way salaamaya.